daawade halkan waa M252 kusoo dhow muuqaal kale marka laga hadlayo tiknoolajiyada mid kamid ah qaybaha ugu adag ee tiknoolajiyadu leedahay waa qaybta loo yaqaano artificial intelligence-ga ee loo soo gaabiyo AI dabcan af Soomaali looma hayo laakiin anigu waxaan iska iraahdaa caqliga gacan ku samayska ah si guud artificial intelligence-gu qaybo badan ayuu kala baxaa laakiin ujeedkiisa guud waa in sida maskaxdu bini'aadanka u dhaqanto laga soo mingooriyo oo loo soo mingooriyo kombiyuutarada inkastoo caqliga gacan ku samayska ah bini'aadan sameeyo iyadoo la hubo in tan bini'aadanka uusan marna u dhawaan karin haddana waxaa lagu dadaalaa howlaha ay maskaxdu qaban karto qaar ka mid ah inuu qaban karo artificial intelligence-ga kombiyuutarada tusaale ahaan sida ay go'aanada u qaadato maskaxda bini'aadanka sida ay problemada u xalliso iyo sida ay wax u abuurto ayaa ah mid ka mid ah tusaalooyinka lagu dadaalayo in loo soo minguuriyo dhanka kombiyuutarada anigoon doonayn inaan hordhaca ku dheeraado waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga hadlo mid ka mid ah noocyada artificial intelligence-ga ee loo yaqaano generative AI ama AI-ga xogta abuura si gaar ah waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka sanadkii hore lasoo shaac bixiyey ee loo yaqaano ChatGPT oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu hadalhaynta badan dhanka artificial intelligence-ga ee maanta dunida yaala waxaan rabaa dabcan ma rabo inaan tijaabooyin sameeyo oo aan ku tusiyo muuqaalo kale ayaan rabaa inaan tijaabooyin kaga sameeyo laakiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan kuu sheego xaqiiqooyin dhowr ah oo ku saabsan barnaamijkan ama toolkan AI-ga ah ee loo yaqaano ChatGPT oo aan rabo inaan muuqaalkan ku falanqeyno waxaan ku bilaabayaa waa maxay ChatGPT ChatGPT waa tool artificial intelligence ama caqliga gacan ku samayska ah ku shaqeeyo oo ay samaysay shirkad loo yaqaano OpenAI oo ayna soo bandhigtay sanadkii tagay ee 2022 dabcan sanadkii hore waa ay soo bandhigtay kaliya laakiin muddo ayaa laga soo shaqeynayay sida software-ka ka muuqata software-ka ama toolka AI-ga ah wax badan ama muddo badan ayaa la soo barayay sida bini'aadanku wax u qoro dabcan waa qaybta AI-ga loo yaqaano machine learning ama in kombiyuutarada la baro habka uu bini'aadanka u dhaqmo wax u qoro wax u sameeyo dabcan haddii lasoo koobo ChatGPT waa tool ama website iska dheh kuu sameynaya xog aad rabto in aad gudbiso tusaale ahaan email ayaad rabtaa in lagu qoro emailka xogtiisa ayaad u sheegaysaa isaga ayaa emailka kuu diyaarinaya tusaale ahaan arday ayaad tahay waxbaa lagu soo diray shaqo gurigii lagu soo diray ayaad xogtiisa qoraysaa ama aad leedahay ii samey xog ku saabsan arrintaa xogtaa ayuuna kuu diyaarinayaa qodobka labaad ChatGPT ma yahay tool ama wax looga maarmi karo inuu bini'aadanku wax qoro dabcan qayb ahaan haa laakiin inteeda badan maya sababtoo ah waxyaabaha uu qorayaa inta badan ma ahan wax saxan mararka qaar ayuu isugu kaa darayaa wax qaldan iyo wax saxan marar qaar ayuu isugu kaa darayaa ama ku siinayaa xog qaldan laakiin sida uu wax u qorayo ama sida uu hadallada isugu toosinayo dabcan waa cajiib laakiin taa macnaheedu ma ahan in xog kasta oo uu ku siinayo ChatGPT uu sax yahay ama la isku halayn karo qodobka saddexaad ChatGPT ma lacaga mise waa free dabcan ChatGPT hadeer waa free laakiin waxaa hadeer soo baxaya ama ay shirkadu sheegtay OpenAI in ay sameynayso qayb lacaga oo loo yaqaano ChatGPT Plus lacag ayaad bixinaysaa sida la qiyaasayo $20 bishii kadibna xogta isaga ayaa ku abuuraya qodobka afraad waxaan ka jawaabayaa ma tijaabin karayaa hadeer ChatGPT ha dabcan laakiin haddii aad Soomaali ku nooshahay ChatGPT kama shaqeeyo oo hadeer looma soo fasixin markaad ChatGPT iska diiwaangelinaysana waxaad u baahan tahay in code numberkaaga kugu soo dhacaya aad geliso halkaa kadibna uu kuu furmo laakiin haddii aad Soomaaliga joogto number Soomaali kuma shaqeeyo number kale ayaad ku isticmaali kartaa laakiin guud ahaan Soomaali wuu ka xaniban yahay haddii maybe dalal kale aad joogto inuu ku shaqeeyo oo aad tijaabin karto laakiin dad badan ayaa tijaabinaya sidaa darteed inta badan serverka wuu crash garoobaa ama wuu istaagaa su-aasha shanaad nooca ChatGPT uu ka yahay artificial intelligence-ga ee loo yaqaano generative AI
ee xogta u abuuro dadka bini'aadanka ma keliya ChatGPT ayaa jira mise barnaamijyo kale ayaa jira dabcan barnaamijyo kale ayaa jira oo xitaa ChatGPT-ga ka horreeyey laakiin shirkado waxaa jira softwarada diyaariya ama barnaamijyo noocaas diyaariya laakiin aan weli bulshada usoo bandhigin sidoo kale waxaa jira shirkado horey u diyaariyey laakiin aan lagu qancin kan xoogaa dadku way ku qanceen sidaa darteed ay hadalhayntiisu u badatay qodobka lixaad yaa iskale ChatGPT waxaa iskale shirkadda American oo loo yaqaano OpenAI laakiin saamiyada ugu badan ee ChatGPT waxaa iskale shirkadda caanka ah ee Microsoft waxaa la sheegaa ilaa iyo 49% inay Microsoft leedahay taana macnaheedu waxay tahay in Microsoft ay maamusho sida uu u shaqeeyo ama sida uu u shaqeyn doono ChatGPT waxay sidoo kale sheegtay Microsoft inay ku soo dari doonto qaybaheeda softwarada kala duwan sida Word-ka sida PowerPoint-ga search engine-keeda gaarka ee loo yaqaano Bing iyo barnaamijyo kale oo Microsoft ay leedahay inay ku soo kordhin doonto inta aan ku gacan haatinin waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga mahadceliyo shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ah ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya shirkadda Haleel waxaad ka helaysaa dhammaan waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo si rasmi ay ayada wakiil uga tahay damaanadna ay ku siinayso xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho qodobka xiga marka laga soo tago in ChatGPT uu xogta qofka bini'aadanka u qori karo xogtaas oo meelo kala duwan loo adeegsan karo haddana waxa uu sidoo kale awood u leeyahay inuu qoro koodhka kombiyuutarada koodh ayaad u sheegaysaa inuu kuu qoro ujeedka ayaad u sheegaysaa dabcan koodhkaas ayuuna kuu qorayaa dabcan xitaa waxaa la sheegaa inuu website samayn karo kaliya aad leedahay waxaad ii samaysaa website noocaasa xogta noocaasna ay ku jirto sidaas ayuuna kugu abuurayaa ugu dambeyntii dabcan qofka bini'aadanku inuu xog qoro tusaale ahaan qormo dheer oo kale inuu qoro waqti badan ayay ka qaadataa dadaal ayay u baahan tahay hal abuurna way u baahan tahay oo waa la ogyahay waana la hubaa bini'aadanko idil isku si wax uma qori karo hal abuurka qoraalkana ma wada laha ChatGPT culayskaas qayb ka mid ayuu xalinayaa laakiin ma wada xalin kara sidaan soo sheegay waxaan rabaa marka adiga inaan ku weydiiyo sideed u aragtaa barnaamijkan ama toolkan AI-ga ah ee loo yaqaano ChatGPT fadlan faalladaada iyo fikirkaaga qaybta hoose ee faallooyinka nagula wadaag sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego in muuqaalkan aanan haddeer wax tijaabo ku samaynaynin laakiin muuqaal kale oo xiga ayaan ka samayn doonaa tijaabo gaar oo aan ka samayn doono ChatGPT iyo sida uu u shaqeeyo dabcan waxyaabo ayaan weydiin doonaa sida uu xogta u abuurana waan arki doonaa anigoo kaaga mahad celinaa waqtiga qiimiga badan ku bixista daawashada muuqaalkan inta laga gaarayo muuqaalka xiga badankii nabadgelyo haddii aadan ka mid ahayn asxaabta am252 maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto dabcan 100,000 qof ayaa ku soo dhaweyn lahayd soo dhawo Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun.